إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeenu sheekeeya caruurta. qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay qiso cajiiba oo la kulmay saxaabiga Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu yaraantiisii. هيا هيا نجلس مع كل الإخوان، نتسلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. saxaabiga Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu aabihii waxaa la oran jiray Haritha ibn Sharaxil, hooyadiisna waxaa la oran jiray Sucda bintu Thaclaba. hooyadii iyo aabihii waxay ka kala dhasheen laba qabiil oo qabaa'isha carabta ka mid ah. waagaana waxaa dhaqanka u ahaa in qabaa'ishu ay maaragtay meelo kala duwan ay degaan. qabiil kastaba meel gooni ayuu degi jiray, qabiilka kalena meel kale ayuu degi jiray, oo sida hadda magaalooyinka dadku ay u wada degan yihiin ma ahan jirin maaragtay. marka labadii qabiilba waxaa u dhexayn jirtay masaafooyin kala duwan oo mararka qaarkood meel maalmo loo soconaya ayaa u dhexayn jiray. marka Sucda maadaama aysan qabiilkeedii ama qaraabadeedii aysan la nooleen, waxay u baahnanaysaa muddo markay joogto in ay soo salaanto oo ay maaragtay dhowr maalin xagga ku maqnaato. marka maalin maalmaha ka mid ayay ninkeedii ka codsatay in uu maaragtay u fasaxo inay qaraabadeedii soo salaanto. marka uu ka yeelay, uu soo waday, wuxuu u keenay meeshii qaraabadeed ay deganaayeen ayuu keenay. wiilkeedii yaraa oo Zayd ibn Harithana way wadatay. waxaa la sheegaa marka inuu 7 sano ama 8 sano meelaha inuu jiray. meeshii ayuu uga soo tegey si uu maalmo kadib ugu soo noqdo oo markaa u soo celiyo. intii ay meesha joogeen wuxuu Ilaahay qadaray in meesha dagaal uu ka dhaco oo qolo ay meesha ku soo duusho, oo maaragtay dhaqanka waagaasna waxaa jiray in markii qolo ay meel ku soo duusho inay ilmaha qafaashaan. ilmihii meesha laga qafaashay waxaa ku jiray Zayd ibn Haritha. Zayd meesha laga soo qafaashay oo la soo waday, waxaa la keenay suuqyada carabta ka mid ah oo la oran jiray suuqa Ukaad. suuqaas ayaa wiilkii lagu iibiyey. waxaana waagaas qofka marka la iibsado adoon buu noqonayaa, waa maaragtay qoladaas iibsatay ayaa u shaqaynaya, ayaga ayuu maaragtay xor ma ahan, ayaga ayaa maaragtay waxay doonaan u dirsanaya oo baahidooda ah, ama ariha u raaco ama maaragtay shaqooyin kale ha u dirsadaan. ayagaas ayuu markasta ku qasban yahay sida ay rabaan inuu yeelo. marka waxaa soo iibsaday Xakiim ibn Xuzaam ibn Khuwaylid, wuxuuna u soo iibiyey eedadii Ummulmu'miniin Khadiija bintu Khuwaylid radiyallahu anha. waagaasna weli maysan islaamin markaas, nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa markaa weli waxyiga kuma soo deganin. marka wiilkii waxaa la keenay gurigii Khadiija, halkaa ayuu ku noolaa. kadib waxaa Khadiijo guursaday nabiga calayhi salaatu wasalaam, asaga ayayna u hadiyeysay. sidii ayuu Zayd marka khaadim ugu noqday nabiga calayhi salaatu wasalaam. intii uu nabiga u khidmaynayay wuxuu la kulmay wax uusan weligii filanaynin: dhaqan wanaagsan, akhlaaq heer sarayso, naxariis iyo wanaag oo xataa aabihii agtiisa ku heli jirin ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa ka helay. aad ayuu u jeclaaday, qalbigiisana aad buu ugu weynaaday. sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam isagana Zayd aad buu u jeclaaday, oo xataa maaragtay xadiista aad baa looga arkayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam jaceylka uu qabay iyo sidoo u jeclaa Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Zayd aabihii Haritha ibn Sharaxil markii loo sheegay wiilkiisa in la qafaashay, aad ayuu u murugooday. si kasta ayuu isku dayay inuu wiilkiisa raadiyo, meel kasta ayuu ka raadiyey, juhdi badan uu geliyey. wiilkiisi meel uu ku sheego uu waayay. meel uu wiilkii jaani cerab dhigay odaygii waa garan waay. aad ayuu u murugooday. waxay ku noqotay wax maaragtay hurdadii ka qaada oo murug geliya. wiilkaygii meel igu sheega ayuu ka gaaray. maaragtay gabayo badan uu tirin jiray, uu maaragtay oohintiisa iyo murugtiisa iyo naxdintiisa ku muujin jiray sida uu maaragtay wiilkiisa uga walwalayo. muddo kadib waxaa dhacday sida la sheegay in qolo Harith qaraabadiisa ah inay yimaadeen magaalada Maka. wiilkiina meesha ay ku arkeen way waraysteen, magaciisa weydiiyeen, ma xor baa tahay mase adoon baa tahay. wuxuu yiri qolaasaan maaragtay la joogaa,
oo maaragtay halkay adiga dhalatay, qabiilkiisii iyo wixii u sheegay, ee aabbaha yaa waaye wuu u sheegay. markii ay macluumaadkii ka fahmeen wayba garteen wiilkii. markii baxeen marka waxay u tageen odaygii, waxay ku yidhaahdeen wiilkaagii waxaan ku soo aragnay magaalada Mako. odaygii Xaarisa iyo walaalkii oo markaa ah Zayd adeerkiis ayaa is soo raacay, waxayna soo aadeen magaalada Maka. marka wiilkii maaragtay ay soo raadiyeen ciduu la joogay, waxaa la yidhi maxamed ayuu la joogaa. marka way u yimaadeen, waxay ku yidhaahdeen maxamedow maaragtay hadal macaan badan ay ku yidhaahdeen, dad wanaag lagu yaqaanaa tihiin, reer Maka iyo reer bani Haashim gaar ahaan iyo reer bani Cabdilmutalib. waxaan kaa codsanaynaa wiilkeenna ayaan u nimid oo adiga maaragtay aad yacni haysatid, marka inaan waxaan rabnaa aadna wanaajiso oo madax furashadiisana aad maaragtay nagu dhaqaalayso, wixii maaragtay aad sheegatana diyaaraan kuu nahay wiilkeennin inaad si wanaagsan noogu wareejisid ayaan kaa codsanaynaa oodna wanaajisid. wuxuu ku yidhi ka warrama wax ka khayr badan haddaan idiin soo bandhigay, ka warrama. waxay yidhahdeen waa maxay? wuxuu ku yidhi wiilka ayaan u yeeraynaa, asaga ayaan leenahay dooro, haddii uu idinka idin doorto waa idinku wareejinayaa, waxbaan idinka qaadan maayo. hadduu aniga i doortane aniga qof i doortay ma wareejinayo, maarta anigu la joogayaa. markaas ayay waxay yidhaahdeen waadna wanaajisay, bal waaba noo siyaadisayo, waxa maaragtay wanaag baaba na siisay. wiilkii ayaa loo yeeray, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa weydiiyey, wuxuu yidhi raggan ma garanaysaa? wuxuu yidhi haa, waa aabbahay iyo adeerkay. wuxuu ku yidhi maanta aabbaha iyo adeerkaa waxay u yimaadeen in ay adigii maaragtay ku xoreeyaan oo ay ku wataan. markaas ayaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey marka inuu kala doorto in uu asaga la joogayo iyo in uu aabbihii iyo adeerkii raacayo. markaas wuxuu yidhi maya, aabbahii iyo adeerkii raaci maayo, adiga ayaan kula joogayaa, adiga ayaa maaragta aabbo iyo adeer iyo kulliba iga wanaagsan, cid aan adiga kugu bedelanayana adduunka dhan ma jirto ayuu ku yidhi. adeerkii iyo aabbihii waxay ku yidhaahdeen war Zaydow maxaa kuugu dhacay? sidee u fakaraysaa? ma addoonnimo ayaad dooranaysaa adoo xorriyad heli kara? aabbaha iyo reerkaagii iyo maaragtay ciddaadii adoo heli kara miyaa qof qariiba dooranaysaa? markaasuu ku yidhi may, wanaaga aan maaragtay ka ag helaya maxamed cid kale oo agtiisa ka helaya ma jiro. intii markay dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu istaagay, dadkii reer Maka meesha joogay ayuu isugu yeeray, wuxuu yidhi markhaati ka noqda, maanta laga bilaabo Zayd waxaa waaye waan xoreeyey, waxaana ka dhigtay wiilkayga. waaga dhaqan waxaa jiray qofku inuu qof maaragtay ka dhigto wiilkiisa oo yidhaahdo oo wiilkayga oo hadho asaga loogu magac daro. marka wuxuu yidhi wiilkaygii waaye. waagaas muddo dhan baa waxaa la dhihi jiray Zayd ibnu Muxamed. dhowr sano ayaa la oran jiray saas, ilaa markii dambe ilaahi subxaana watacaala aayado qur'aan soo dejiyey, udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah fain lam taclamuu aabaa'ahum faikhwaanukum fi ddiini wamawaaliikum وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. aayadahaas qur-aanka ayaa ilaahay subxaana watacaala ku mamnuucay in qof aanan aabbihii ahayn in loogu magac daro. markaas waxay ka dambeeyey saxaabadu waxay dhihi jireen Zayd ibnu Xaarisa, laakiin ka hor waxay ugu yeeri jireen Zayd ibnu Muxamed. halkaa ay sheekadii noogu dhammaatay. sheekadan waxaan ka faa'iidaysanaynaa ahamiyadda iyo qiimaha ay leedahay akhlaaqda wanaagsan, dhaqanka wanaagsan, naxariista, macaamilka fiican, saamaynta ay leeyihiin wax la qiyaasi kara maaha. waxaan aragnay dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo macaamiladiisii wanaagsaneyd sida ay qalbiga Zayd u saamaysay oo ay u haanatay, oo ilaa uu maalintaasoo heli kara aabbihii iyo adeerkii inuu raaco, in uu ka doortay inuu nabiga la joogo calayhi salaatu wasalaam, in uu asaga ka jeclaystay laanna wanaagga iyo dhaqanka uu nabiga ku arkay mid maaragta uu aabbihii iyo cid kale ka heli karo marna ma ahayn. annagana waxaana laka rabaa inaan ku daysanno nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan isku dayno akhlaaqdiisii inta karaankeenna ah, inaan isku dayno inaan ka dabaqno
oo aan isku dayno inaan ku dadaalno dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam. mahadsanidin la socda sheekooyinka soo socda. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار.